fiican camal aalad oo ku duubo ama uusan aqoonin editing. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي الغالية meel walba aad joogtaan waa idin salaamay. walaalkiina Maahir Cadde ku soo dhawaada YouTube-kayga kuna soo dhawaada video-gayga cusub. waxaan idin leeyahay subaxnimo wanaagsan meel walba aad joogtaan. asxaabay maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo maxaa waaye inaan video soo duubo marabin. waxaan rabay jimcadii oo kaliya inaan video aan soo duubo. maanta waxaa igu khasbay inaan video aan soo duubo. video xal oo soo dhigay walaalkayga Kamaal Abdul ayaa xalay video soo dhigay. videogaas wuxuu ka hadlayay youtuberada hadda soo baxaya ayuu dhiirigelinayay iyo dadka youtube-ka ka caajiza ama sababa awgeed youtube-ka u dhaafa. marka afar qodob ayuu ka hadlay walaalkayga. afarta qodob waxay tahay number 1 in qofka youtube-ka ugu tago maxaa waaye inuu haysanin mobile fiican camal aalad oo ku duubo ama uusan aqoonin editing. waxaa la dhahaa maxaa waaye video qaabka loo qurxiyo iyo video qaabka loo habeeyo. labaad uu ka hadlayay waxay tahay maxaa waaye qofka inuu maxaa waaye group ku xirnaa groupkiisana ay ka tageen sidaas daraadeed youtube-ka oo ka caajiso kaligiisa inuu wax maxaa waaye ma duubi karo uu ka caajisaya. sababaas awgeed youtube-ka wuu tagi karaa qofka. marka afar qodob ayuu ka hadlay. afartaas qodob waxaan rabaa inaan ka bixiyo xoogaa yar maxaa waaye reaction ama faahfaahin ama sharxaad oo nafsadeeda ku saabsan. marka waxaan rabaa qodobka koowaad ay ahayd maxaa waaye qofka inuu haysanin mobile fiican. horta aniga mobile fiican waan haystaa oo aan wax aan ku duuban karo iyo editing waan aqaanaa intii tabarteeda ah ee maskaxdeeda ku jirto waan quruxsanahay videogayga. marka sababa awgeed editing la'aan ama horta qofka inuu youtube-ka soo galin waxaan rabaa youtube marka soo galaayo inuu soo hubiyo mobile fiican ma haysataa editing ma taqaanaa. aniga markaan soo galaayo mobile fiican waa haystay laakiin editing ma aqoonin. gadaalaan ka bartay xoogaa yar youtube-ka waxaasaan ka fiirsaday editing-ka waan bartay alxamdulillah. sidaas daraadeed youtube-ka inaan ugu tago mobile awgiisa ama editing awgiisa inaan ugu tago ma laga yaabo. qodobka koowaad uu ka hadlayay waa midaas. qodobka labaad uu ka hadlayay waxay tahay maxaa waaye inuu qofka group ku xirnaa. tusaale ahaan aniga markaan group maxaa waaye youtube-ka aan soo galay waxaan ahayn 3 qof ayaan ahayn. hadda labadeeda saaxiib way iga tageen wayna mashquulsan yihiin. qofka bini'aadanka kaligaaga ma kugu xirno kaligaaga ma ku shaqeynayo. ha isbarin waligaaga inaad qof ku xirnaato nafsadaada kaligaaga u shaqeyso. kaligaa waxaa laga rabaa kaligaaga inaad u shaqeysan kartid iyo groupkaaga inaad maxaa group aad inaad shaqeysan kartid. haddaad kaligaaga tahay inaad shaqeysan kartid mar walba inaad shaqeysan kartid inaad diyaar u tahay laga rabaa. inaad go'aan iska soo saartid inaad youtube-ka aad soo geshid go'aan ay u baahan tahay. aniga go'aankaas waa leeyahay youtube-ka toosaan usoo galay toos waana u wadayaa. asxaabteyda hadday yimaadaan waa khayr hadday iimaanin ama maxaaba ay mashquulsan yihiin kaligayga waa wadan karaa waana youtube-kayga heer sare waa gaarsiin karaa insha allah hadduu ilaahay idmo. qodobka saddexaad oo ka hadlayay waxay tahay inuu qofka maxaa waaye views la'aan ugu tago maxaa waaye youtube-ka views la'aan ama like la'aan ugu tago. sababtoo asiga wuxuu ka maseerayaa ama qof ayuu tartamayaa qofkaasi wuu ka views badan yahay wuu ka like badan yahay wuu ka subscribe badan yahay. marka sababtaas awgeed waxaa laga yaabaa inuu isdhaho youtube-ka wax ma ku yaala aniga youtube-ka waa ka baxaya inuu dhaho laga yaabaa. sababtaas awgeed aniga waxaas ma laga yaabo insha allah. youtube markaan soo galayay waxaan usoo galay inaan aniga horumar aan isgaarsiiyo. maya ma isku soo galin qof dartiisa youtube-ka adoo qofkaas camalna isku xiro. waa jiraa ilaa qof aad ka dabadeysay. tusaale ahaan aniga maxaa waaye waxaan kasto maxaa waaye ka dabadeystaa ama aan taageera ama aan ku daydaa team enjoya oo maxaa waaye walaalihii qaaliga ah ee Kamaal Abdul iyo maxaa waaye Imaan iyo enjoya kuwaas camal maxaa lama huraan waaye qofka inuu qof ku daydo way fiican tahay. sababtoo ah qofka inuu qof ku daydo way fiican tahay laakiin waxaa xun inaad qofkaas isku xirto. qofkaas adoo views badan helo ana dad views badan ay heli waay youtube-ka waa ka tagaa. midka ugu xun waa midaas. laakiin qof inaad ku dayatid ku dayasho fiican
kudayasho xun ninkaas hadduu wax xun sameynaayo kudayani laakiin hadduu kudayasho fiican leeyahay oo qof wanaagsan yahay oo dabeecad fiican leeyahay kudayasho fiican way fiican tahay qofka inuu qof ku daydo laakiin waxaa la diidayaa qof inaad isku xirto qodobka saddexaad uu ka hadlayo waa midaas qodobka u dambeeya uu ka hadlayo walaalkay Kamaal Abdul waxay tahay inuu qofka dadka nijiyaan tusaale ahaan comment item loo soo qoro oo la dhaho warniyo adiga YouTube-ka ma ku nuuraysidee war YouTube-ka nooga bax YouTube-ka ka bax niyo YouTube ma ku nuuraysid waji YouTube maliid dadaasaas ku dhahayaan waji YouTube maliid maxaa wajiga ma YouTube ku qoran qof walba talentigiisa YouTube ku jooga Soomaali dadaa ku dhahayaan warniyo waji YouTube maliid ka bax wax aad tahay male marka dadkaas dartiisa inaa ugu tagtay YouTube-kaaga waa laga fiican yahay oo Kamaal Abdul oo ka hadlayo walaalkayga ma fiicno dadkaas dartooda inaa ugu taga ma laga yaabo ani YouTube-kayga dadka i caynayaanba horta alxamdulillah dad i caynaya ma jiro laakiin dadka i caynayaanba aniga dartooda YouTube uma tagay maxaa waa YouTube-kayga waan sii wadanayaa waana horumaraan sii gaarsiinayaa dhiirigelin ka sii qaadaa wili qofka i caynaya bas dhiirigelin ka sii qaadaa waa sii wada markaas camal qofkaasi dhigteeda wax uma dhiganay hadalkiisa ma badhageysanay waa sii wadaya YouTube-kayga qofka dartiisna YouTube ugu taga ma laga yaabo insha Allah Kamaal Abdul walaalkay khali ah waa ma santahay mar walba waan dhiirigelisaa YouTube qof YouTuber ah oo dhiirigeliya adiga ka arkay qof kale oo dad dhiirigeliya ma jiro ilaa hadartaan qof kale dhiirigeliya ma jiro ilaa adiga maahine ilaa hal qof oo maxaa qof kale dhiirigeliya waa jira qofkaas waxa waaye arimaheyn asigana waan arkay asiga dad oo dhiirigeliya dadka YouTuberada oo dhiirigeliya iyo adiga qof kale aan arkay male oo qof YouTuberada soo baxayaan dhiirigelinaya marka way fiican tahay qofka walaalkaaga waaye inaad dhiirigelisid inaad garab aasiiso adi horumarka aad gaartay kaligaaga horumarkaaga isku ekeenin horumarkaas Ilaahay ku gaarsiimaano adigana walaalkaaga u dadaal walaalkaaga gaarsii sababta mutafiir markoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam markuu dhahay khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama sidaas amal limid tahay cilmiga horta kaligaaga ma uu ekeysto YouTube-kaaga cilmiga ka yeeshatay waa baratay sida loo isticmaalo YouTube-ka maxaa waaye dabeecadihiisa ama xaaladihiisa waa ogtahay walaalkaaga u faa'iiday garab si caawi sida adiga ebel aheed oo loo caawin jiray walaalkaaga u caawi garab si la garab istaag YouTube-kiisa sidaas fiican marka adigana waxa waa farxaysaa walaalkaaga una farxa laakiin kaligaaga hada isku ekeyso oo hadaado ma yaani qof kale garab aan siinay male kaligayga isku ekeena waa laga fiican yahay walaalkaaga ina garab siiso waa fiican tahay insha Allah walaalkay Kamaal waa maxaa waa ma santahay walaal khali ah aad mar walba waana idhigisaa YouTuberna idhigisaa aad waa ma santahay waxaana u rajaynayaa khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash insha Allah asxaabtayda qaaliga ah video meeshan ku ekeenaya waxaan idin leeyahay videogiska intaan ku kulmayno waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.